يا رجل ما شان هو هالشباب اللي يرادوا مدحان هيله مر والبا انت اني يمادا ورنكي كتاغنا بولي برتو ايضا اول ورن كتاغنا oo hal lugna ku taagnay warankay kululaayeen waa ka tagay waranka ninku kugu dhufsay ninku kugu lulayaa daranay leer waa yimaadaan warankay lulaan waa ka tagayeen annagoo nabad ah oo hadii ilaahay ku roon yahay qayl ayna dhax oolin inta beelood ama reer buuli burto degmadan degan sabcan wadaacan isla socoto ay soo dhax galeen hirshabeella soo dhax gashay khaasatan ninka la leeyahay caad cid u yeeratay male cid noo imaw tiri male cid kaale consul noo dhig ama noo dhistiri male asaa la yimid asagii la yimid haddana carqaladaynayo ballanaan lahayn dawlow isku sheegaa shaati dawladeedu gishan yahay wax alla wixii ku hadashay waa qoran yihiin ama waa duuban yihiin inaad ka soo baxda la rabaa dukaa talaad ba ka dhigatay 3 bilood 4 bilood ka bacdi nin inaad naga dhax baxdo oo noo imaanin ay ku fiicanta heer buulburto awal ba heer buulburto ay ahaayeen mana dirsanin adaa isku diray waxaan leenahay dawladda hirshabeelle awalba buulburto si khaas ah uguma shaqaynayeen marka waxaan leeyahay inaad mashquulisiin buulburto inaad mashquulisiin oo haddii ilaahay ku roon yahay aad madaxa isu gelisiin oo isku durtaan bas aad ka shaqeeyo hasheen wax faa'iido ah oo kale idinku haysano ilaahay abuurto ma jiraan nadaaya nadaaf taas meeshaasaan uga baxaa waxaa ii haray dadka leh buulburtaan leennahay oo buulburtaan leennahay leh oo buulburta Soomaaliya oo dhan degan runtaana la isu sheegaa waxaad reebateen male annagana wax reebanayna male buulburta Soomaaliya oo dhan degan wax ka maqan male qabiil Soomaaliyeed oo deganeen male iyadoo sidaas tahay marka taariikhda dib loo raaco oo runta la sheego hal la sheegto buulburta yaa loogu yimid marka la yiraahdo bii fadhiyo bii socdaa ka ciyaar la yiri ana iskale aniga anoo 3 cumar ah cid ila sheega karta male ana iskale ana leegu yimid inta kale degan ana iigu timid inta kale degan na ana iigu timid 3 cumar la yiraa 3 oday waa 3 cumar ciisaan ahay waa ciise iyo maadli iyo eyle 3 cumar hadaad maqasho markaan heer buulburta ahay on 3 cumar ahay aan ciise ka sii ahay bagaad cali wili waxan qarinaa male anaad iigu timid oo kugu soo dhaweey oo gacanta ku qabtay haddana biriga waxaad leedahay buulburtaan leeyahay war anigii adiga aad iigu timid ma dhahohay buulburtaan leeyahay ana leegu yimid ma leega maqloohaye maxaa adiga ka keenay buulburtaan leeyahay maxaa ka keenay buulburtaan leeyahay buulburta anaad iigu timid inta degan oo dhan ana iigu timid xawaadla iigu soo horeeyay xawaadla iigu soo horeeyay ma dhahohay buulburtaan leeyahay ma dhahohay majority maanta buulburta wax uga badanna male anigii aad ii timidna ma dhahohay buulburtaan leeyahay intaad ka keentay buulburta adii lahaasheeda intaad ka keentay waa fadhinaa shibaan nahay hanaga hadalsiinina buulburta reer buulburta iskale qof ma sheega karo hadduu qof sheegto waa ka daba hadlaa aniga runtan idin sheegaa war maxaad ku leedahay maxaad sheegtay xafiisyadaas dawladda ay ku shaqaynayso anaan layga qaaday
gudoomiye saddex umar sidoo hore ugu sheegay masaajidkaas taariikhdii dibka marka loo raaco misigaa ka baxaysa anaa layga qaaday dugsi sare anaa layga qaaday dugsi sare bag abeesa anaa layga qaaday sare qasaare anaa layga qaaday dhirta iyo daaqa anaa layga qaaday adi intaad leedahay lagaa qaado ood sheeganaysaa ii sheeg ood ku leedahay Buuliburto warkaas joojiya mar dambe ha ladinka maqlin haddaad jooji waysaan waa ladinka dabageyna haddaad jooji waysaan waa ladinka dabageyna warkaas xisaabaa imaanaysa waana lagu kala baxaa warkaasaa la joojiyo heer Buuliburto waa heer Buuliburto waa isla dhasheen walaalo waaye lama kala xigo waa isku degaan ninka guuri raba male nin meel u socdo male halees la shaqeeye halees la socdo qofkaygii ugu horreeya waxaan ka maqlaayay Hirshabeelle u codsanaynaa nin waxtar loo codsadaa Hirshabeelle u codsamayna anugu sababtoo tahay waxtarkooda waxa ku ogaanay nimay soo magacaabay xafiisay u dhiibay waa ka qaadi waayeen ninka uu soo magacaabay xafiiskii ka qaadila heer Buuliburto u codsamayaan weligay ma arag Hirshabeelle oo gobolka Hiiraan u yimaad ma arag waxay u soo dootay ayaga wax ka ramaane haba uma wadaan toogii saddexaad oo warbaahinta la hadlayna waa ama afeef hore lahaaw ama adkaysimo daba lahaaw waxa ka afeefanaynaa saddex gudoomiye waryaala loo keeni laalaynahay haddaad keetaan afeefta inaad arki doontaan waxaa ka afeefanayno hore iduu toogidii sheegna labadiisa toogii saddexaad waay wixii ka dhacaa degmada Buuliburto Hirshabeelle waxaad halleydeen inay tiina ogaan doontiin haddaan nafta qabtiin Hirshabeelle wasiiray soo diri ku kale soo diri degmada Buuliburto guri ka dhaxdaga maxuu u sheega ummadii talada lahayd war kale heed aqoon kale loo imaamayo inaysa markay timaada degmada dhinac ka Hirshabeelle kurtaad inay samiya fagaara wax ku bashay karaamiya xafiisyahay dhisana xiran maxay loo sheegaan nima haastay ka qaadi laayeen wax alla waxaad keetaan mas'uuliyadeeda adika qaadi doona waxa warbaahin ku sheegaynaa wax qarsan ma wax waasaca waay ilma yar oo waxba aana garan oo caseeyaala xafiisyada la geysana wax garadkii degmada la geeymayo hadda maaligii ugu dambeysay howlkii degmada la furay yaa tagay yaa lagala hadlay yaa la warsaday mashruuca la wada hadlay yaa loo wada horta ma degmada loo wada ma saacayaalka loo wada waxa qaadanayna ma degmada amniga jooga amnigu inuu hay'adaha iyo ummadda ku mashquulan ma wixii loo imaday amni waa hadda korkaayna waxa laga sheegaa maanta dagaal xabada dhacayda leh waagana dadweynihii ummadii degmadii la dhex jooga maxaa dhex dhigay wax suura galaya ma ida qaridoona ma jirto hadday amni tahay hadday maamul tahay hadday xildhibaan tahay hadday wasiir tahay ida qaridoona ma jirto horaana u niri nin walba magaciisa saddexana hayna war canuga yar oo kalkaaliyaha u ah wasiirka soo magacaabo soo dira hal dilo waa war dhiig ma rabnaa laayna kan magacayga muslim war canugaas hadda hal joojiyo hadda la joojin wixii ka yimaade mas'uuliyadda adika qaadi doono maalin kasta nin bay noo soo magacaabeen degmadan Buuliburto inta gudoomiye la soo magacaabay wuxuu gaarayaa 7 uu gaarayaa hadda waxaa gudoomiye ugu dambeeyay ahay min ay Hirshabeelle soo magacaawday ay keentay 5 gudoomiye ku xigeenna waa la socotay intaas waxaa asaasna soo magacaabay
hirshabeelle khaasatan wasiirka arrimaha gudaha wuxuu ugu dan leeyahay ma naqaan galaa dhaweed ninkan hadda uu keenayay ugu dambeeyey waxaan ballan ku laheen markaan mar ka dambeeyo nimad adinka magacaabataan maan adiin soo magacaabi maayo ninkii jagada waa ka qaaday nin kaloo ku wareejiyo uu yidhi kumeelgaarkii waxaan sugaynay marka dowladda hirshabeelle in ma aragtay danteeda iyada taqaana ay dhiso waxa la yidhaha consul ninka la yidhaha caadle wuxuu naga ballan qaaday consul ninkaa waxay ka dambeeya consulle ku tashta hadda nin buu soo magacaabay ninkii ka horreyna jagaduu laga qaadayaa la yidhi consulka intii laga dhisaa ninka uu soo magacaabay ma yeelin haddeer waxaan maqlaynaa nin kaloo soo magacaabay jowhar wixii ka dhacay xamar ka dhacay buuliburta iyo jowhar waa isku xiriyihin iyo xamar waa isku xiriyihin waxaan maqalnay buuliburto in la yidhaahda anaa iska leh war buuliburta xawaadle iyo jareer iyo gaaljecel iyo baadacaddaa wada degan soomaali kalena waa nala degantahay waa beled soomaali waay laakiin nin isagaba la soo gudbiyo oo la soo dejiyey inuu yidhaha anaa iska leh midaan sugayni ma aha ayaa dhaweedna warbaahintaakir haddaan waa ku celina war buuliburta waxaa loogu yimid runta mugii loo hadlaayo xawaadle iyo jareer khaasatan jareeraa loogu yimid masaajidka buuliburta ku yaal eedadayaa bixisa waxaa iga markhaatee ilaah waxaa ii laba iga markhaatee masaajidkaas buuliburto ilaahay meesha ku dhisay waxaa ii saddexee yaxaas iyo jeeraa iga markhaatee webiga qarkiisaan degana xawaadlaa ugu dambeeya markhaati iga ah ninka dhahaa jareer iyo xawaadla anaa iska leh khaasatan jareer anaa iska jowharaa ka dhacday hirshabeelle ka dhacday annaga waa la soconnaa hadduu nin leeyahay haddeeruu intuu wado ninka beeci doonaa abgaal ha ka gado ama caadla ha ka gado runta mugii loo hadlaa runta markaa ay taagan tahay meel xumay maru haysaa ninkaad keentay oo tiri ninkaa wixii ka dambeeyo ninkaa kumeelgaar ha ahaado nin ka dambe adii keeni maa consulaan kaa sugayne yoolkii iyo xafiisyadii dowladii furaha waxaa tiri haysaa tiri caadlow hayso ninna warqadaa u soo goysa waxaa tiri kac buuliburta tag qoortaa suu kaayna gelis caadlow ilaahay aaqari adduu ilaahay kuma cafiyo reer buuliburta is jeclaad qoorta suu gelisa waxaad naga gashay dembiga kolle reer buuliburtaan kugula xisaabtama doono hadda waxaan codsanaynaa oon adduuweynaha u sheegaynaa amaanu sheegaynaa dowladda federaalka oo ugu horreeya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan cali khayre waxaan codsanaynaa hadday muslimnimo jirto muslaannimo ay jirto oo run sheegaysin oo soomaali ay idiin siman tahay caadla naga qabta iyo wixii la hadmaalo madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare war caadla soo u galaa u jeedaa kursigaada wuxuu haraarta ku haya waa u jeedaa adiga naftirkaada walaalow gacli nin walaalkaayna ha tahay inkastoo hirshabelle aad madax u tahay adigaa xankutid maxamed cabdiwaare ninkaas naga qabo reer buuliburta hadda waxay taagan tahay waa isjeclaayeen ha idayan kuma dayeen idil waa ku dilaa hadda adiga xoog badanta idil ay taagan tahay maxamed cabdiwaarow walaalow gacali annaga gooni kuu soo cumayno nin hirshabelle aad tahay laakiin wasiiradaada adiga cali guudlaaba xakum cali guudlaaba waa ogyahay markhaati uu ka yahay maalinkoo meeshaan ka baxaya inuu yidhi konsula aad sugaysan nin kale adin la keeni maa hadda maxaa keena ninkaa kaloo la soo wado dadka ay hasakay isku dilaan ayahiin war balaayo ma rabno dagaal ma rabno dhiig walaal ma rabno walaalnimaa rabnaa dirisnimayna waa xumaatay caadlaana xumeeye ilaahu caadla naga qabo nin damboo meesha loo soo magacaabanayo yeeli mayno runtaadii sheegaa cali guudlaaba iyo ninkii
caadlo maba la hadlayna kaasi waaba ka dhibaatada wade iyo ninka la yidhaha maxamed cabdiwaare neen damboo lasoo waxaan sugnaa waa consul haddii la waayo reer buurta ayagaa aayahooda ka tashanayo annagaa isdhisayno buulaburte go'doonkii hore waxa labeeyey fatahaadda culayskeeday leedahay barakaceeday leedahay ummad baa bannaanka daadsan marakaneeco aan haysan dowladda soomaaliya ummaddaas ha u soo gurmato intaa baaqa koobaad oon dirayna weeye qodobka ku xigaa waxa weeye ninka la yidhaha caadle ayaan dacwo ka nahay saakay waxaan haynaa buulaburte inuu qoray isugu dhiibay haddana uu mid kale soo wado nin guddoomiyaha xilku ka dhammaado xil ka qaaday wuxuu yidhi degmada xafiiska guddoomiyaha degmada buulaburte iyo hoolka ummadda loo dhisay furaheeda adigu hayso uu yidhi xoogna yaan lagaga qaadanin kumeelgaar uu magacaabay ninka la yidhaha liibaan wuxuu yidhi ninka furaha xoog uga qaado nin saddexaad uu magacaabay oo nin wasiiruhu la soo hoos galay wuxuu yidhi anigu kuma geey kara waase ku magacaabo saxiixayga waa haysataa degmada buulaburte tag qabiilkaada kaasho ayaguna inay hub gadanayaan ay xamar ka soo socdaanaan maqalnay dhibkaas caad la wado biri ka maalin lagu dhimo karo waxaan u baaqaynaa xeer ilaalinta qaranka inay kiis dacwo caadlaha ka furto degmada buulaburte ay timaado si degdega ummadda hawadeedu kalama celisa sharciyaa kala celiya sharciga in lala tiigsado caadle gabadfalka uu ku sameeyey buulaburte iyo dhibaatadu ku hayay ummaddu hadda ula guulan yahu u soo wado arrintaas ma qarinayna koraan u sheegayna saacaddan joogna laga bilaabane ummaddu geedahay ku kala jirtaa xabad bay isku haysataa qofkii ku dhinta ama ku dhaawacmo caadla laga rabaa asagaa loo tooganaya warkaynu meelahaas kama dheera annagu ari hirshabelle u xaraysan ma nihin dad xurahoo cod lahannahay waxaana rabinu ma soconayaan waxaan rabnana annagaaba rabno buulaburtana annagaa ilaahayna dejiyey danta buulaburtana buulaburtay taallaa ninkii danayna uu ka soo qayb gal ayadoo go'doona haddana waxa yimid go'doon labaadoo biyaha ah oo cunay tuulooyinkoodii qayb walba soo cunay magaaladana barka cunay waa labo waxaa yimid cudur kale ee kalsoonida wada shaqaynta udanaynta ummadda diiday muxuu yahay cudurkaasu waxay isugu timid oo laysugu keenay 3 guddoomiye degmo iyo 5 guddoomiye ku xigeyn intaasaa laysugu keenay war ma ka jirtaa caalamka ma ka jirtaa degmooyinka ma tahay arrin nabad loogu talagalay ma tahay xaggay ka yimideen hirshabelle ka yimideen ballan baan lahayn nabad baan meel isugu keennay waxaan ku ballannay nin daboo la soo magacaaba nin degmadu ka tashato laysku raaca moogi nin daboo la soo magacaaba inuusan jirin hoosaan iskala saxiixin in arrinkaa lagu dhaqaaqo xalku sidaa yahay hoosaan ka saxiixin ballankaan lahaynaa laga gudbay waxaa timid sidan u tilmaamayno 3 guddoomiye oo rabta inay iskala shaqayso iyo 5 guddoomiye ku xigeyn oo raba inay iskala shaqeeyaan war magaalo go'doona oo biyo naafeen oo tuulooyinkeedii cuneen oo ayadii cuneen oo kor ka go'need intaasu ma qaadaa ma nabada mise waa nabaddarro waa cuduran laga cayma doonin yaa la mas-uuliyaddeeda hirshabeellaa leh waa xabad layskugu dhiibay dadka war ummaddiinniyaan nahay eheladeenniyaa tihiin mas-uulnimaan idiin ongolayn maxaa idinku kalifay in isku keendishaan maxaa idinku kalifay maa ka joogtaan maa ummadda la talaysataan maa warkeeda qaadataan haddii intaasu dhacday ninkii ku dilayo oo dhahaya sanka ka soo taabo midna iska celi leh ciyaalkaa laga bilaabaa sanka ka soo taabo warna iska celi ayadaasaan u qaadanay waxay tegi doontaa inaan tashanno oo gacantaan u haadin jirno mas-uulimaan ula hadli jirne inaan annagu tashanno oo aan qaadacno saasay tegaysa war maad naga xishootaan war maad ilaahay ka baqdaan war ma waadan ummadda u naxayn
war maxaad uga dan leedihiin maxaad uga dan leedihiin ayadaaba go'doon oo bakti joogto go'doone maxaa keenay 8 daanan isqaban maxaa dusha uga soo saarteen war aliina lama yahay islaan ma tihiin dad ashaata ma tihiin dad Soomaali u dhashay ma tihiin warna daaya waxaan leenahay dawladda dhexe iyo inta saaxiibul aqliga iyo inta saaxiibul iimaanka iyo inta buluburta ka danqanayso war waxa bal indhaa saara waxiin arka adinkuna nadaaya tala noo ma haysaane isdila noo haysaane nadaaya waxaan ummadda reer buluburta abtii aysan walaala ayna rabin ma shaqay doonaan afbuu aan isku leenna war naga cishooda war ilaahay ka baqa waxaan tilmaan cad ka bixinayna annaga ilaahay baan leenahay dhibka aan sheeganayna ilaahay baan u sheeganayna inta iimaanka qabto aqligeedu shaqaynayane hadda wayna maqlaysaa dadka wax noo dhibay isku keen dilay isku keen dirane jawaab cadan siinayna waxaan leenahay dad islaam hadaatiin daay warka waxaan rabaa intaas in ku ciyaaniyo waxa kale oo jiro oo farta la aadayane rag baa iga dambeeya warka kaligi malihiye danta ay kaleeyin iyo muraadkay bulbur kaleeyin lama yaqaan khaasatan gobolka Hiiraan sababta gudoomiye degmo gudoomiye gobol wasiir atir shabaal oo laga bedelay joor iyo balcad male bulburtan jukaatalo laga dhigtay mugta 6 bilood 3 bilood karoora roona sana iyo 7 bil ma aqaan ay joogo meesha inta kala 3 2 hal adi waxaan la mid oo adduunka ba aanaynu waana ma kirshabaal سيبني كان عارض خالي هذا ما عنده حاسة عن سوق تكنيهولك عارض مدحوينك وحقنك على جود هذا عارض مركز من هذين على جود هذا ور على جود وحنري ولا شيء نكون جسمه كتارت on abtakuah waa ogolaa wuri waxba kama qabo waa ogolaa walaashay caanaheedii hadda ninkii caadmay waa uu caasi horta ma dhahay walaashay caanaheeda ku soo wareemaan dhiimaay ee ka fiirsan leenayaa qalad ka gashi ka noqo qalad waa naga gashay salaamana dheera nuujisi salaamana dheera nuujisi salaam caanaheedii ku soo qabtaan dhiimaay ha ka noqdo qaladkaas naga galooha hadda uu magacaabi en baalka xumaa ku meel gaar iyo 3 bil laga joognaas naga daba keenay ki xumaa gudoomiyaas naga daba keenay aad aan hayni aad aanis naga nuuy aad aan hayni aad aanis naga nuuy aad dibkas ninkaas nuu qabtay hadda waxa la reer bulburto dibay qabaan reer bulburto saan waa le meedas anaga nuu qabtay reer bulburto kuma qaban gaar ahaan anagaas dib nuu qabtay madaxweynaha oo hirshabeelle madaxweyne ku xigeenka oo hirshabeelle ma sameey kara caad waxa la sheegaa raali ogiin madaxweyne hadda ay maqlo balweyne hadda soo dawaa garoonka soo dawaa warkeena ha maqlo dhibaatada dhan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka oo soo dhiibay ninka caad waxay raali oo ka ahan ma sameey karo anaga caad dhibaat buu haa dib xoog loo waa asoo dibkaas nu waa hadan shalay wuxuu sameey kactaga bulburta haadi nis ka hoolkii u fure la shirawni ilaan ku dhaariye hool oo wiiraan 2 bilood 3 bilood xirnaa hool kala furo qalad kalanta hadan nu sameeyo mugta gudoomiye oo degmada oo ku xiga ku samaahay awacay yada wasiir hoolkii wala furi maanta waayahay gudoomiye horo iyo ragii kamida fadhiyo waryaa casirna ku guuri waryaa naag cadan ku guuri hadana gusku wasbaan ku siinaa waryaa warkaas waa dareemi kartaa mugta isku dir waa mugta anaga saad suu dirmimayni reer bulburtaana نوع عضو علي رسول كعبسو إلهي كعبسو وانا لبتي
waana dhigtay shaar oo dawladeeda noo gashan tahay khaas ahaan buuliburto iyo gobolka hiiraan farakulla ku haysee ilaahay ka dhax bixiyo yaa la qaniinoo qarsadaa la yidhi waxaan tabanayno oo nagu yimaado dhiba oon la qaada karina waa sheegaynaa warbaahintana waa ka sheegaynaa hadday noo yimaadaanna waa u sheegaynaa cali guudlaa waa markhaati ka caadle wuxuu yidhi waxaan samaynayaa golihii degaanka nin dabool laydiin soo magacaabayaa ma jiro adinku ismahadiya ama is-eeda saasowna yidhi oon ku kala tagnay waana weydiiyey gedigeenna aftii uu naga qaaday waa ogolnahaan nidhi haa dhammaanteenna saasaan ku kala tagnay waxaa ka dambeeyey inuu 2 nin oo ninkii guddoomiyaha degmada iyo duqa magaalada inuu xilkii ka qaaday nima u dhiibay uu yidhi waa meel ku gaar kalsooniyaana gashay aan leenahay haddii mar nin loo magacaabay nimankiina laga qaaday marka ninkaasaa maaragtay intuu meel ku gaarka ayaa la samaynayaa golihii degaanka waxaa noogu soo xigay sitimaan dhexdiisa in nin kalaa la soo magacaabay la yidhi kuwii horena waxay joogaan meeshii xafiisihii maamulkuma shaqaynayaan ninkii la magacaabo waa meel ku gaar uu yidhi bannaankuu taagan yahay meel loo ogol yahay ma jirto nimankii joogu xilaan ka qaaday yidhi meeshii ninba xilka awal haay u hayaa wax hirshabeelaha noo yimaada oo ama hadla ama warqad soo dira ama amre magaalada amniga joogee ma arkin inaan qaylino oo dhibkeenna sheegano oo waxaan aragnaa sheegno oo cali guudlaa ka eed sheega leenahay aan ka eed sheeganayno waxa weeye waxaan ku aragnay weeye waxaan rabnaa cali guudlaa maalintii hirshabeelle la dhisay laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha waxa ka dhigay cali cabdullaahi caadle waxa ka dhigay wasiirka arrimaha gudaha cali cabdullaahi abtuna wasaga yaa saaran inuu nagu tunto annaga maan loogu hayaa ma garanayno ilaa nin wax ku dheelaya in laga wareejiyaa diintu qabtaa dadnimaduna qabtaa aragtiduna qabtaa fikraddu hadday tahay buuliburto koray ka xidhantoo wax ka warqababa male nin diyaarad saanama nin kaloo tagaa male waxaad samaysaba cid arkaysa male haddii la yidhaah dameeraha iyo idaha haddii dugaagu qabsado firti digin la maqla moogiye aan wax cabaadahoo ka yeelaa jirinaa la yidhi neefkii cabaadaa dhulwey laga fujiyaa la yidhi oo cabaadaynaa ilaa adduunkaan ogeysiinaynaa dowladda dhexe federaalkaan ogeysiinaynaa hirshabeelle madaxdeedaan ogeysiinaynaa iyo ninkii muslimahoo quman oo cadaalada waxaan doonaynaa qaladka in la ka daayo islaantii qoryaha soo gurtoo qaadi kari weysay baa la yidhi raalli ha layga ahaado waxa weeye inta ninkii lagu magacaabay uu haysto degmadii oo waa ka qaadna xilka la yidhi in ku kale lagu soo magacaabaa waxa weeye waxaan welina la arag lana maqal war hirshabeellow naga dhaafa mididu kala goysay goysaa laf dheer haddii la saara meelna goy mayso lafta dheer midida la saaraya hirshabeellow naga daaya waa idila hadalnay haddaad diidaanna waa dagaalaynaa intii karaankeenna assalaamu calaykum